runtii waxaa halkan u joogno waxay tahay waa waddadii Lido oo aan caawda furayno leerarka cadceedda ku shaqeysa oo halkan aan suura gelinay maamulka gobolka Banaadirna waxa ka go'an waxay tahay bilicda caasimadda la soo celiyo si bilicda loo soo celiyana waddada Lido waa waddada ugu muhiimsan horeyna aan laami uga dhignay maantana aan dah furayno in nalal ay yeelato runtii annaga waa naga go'an tahay maamulkii shacabka inaan u adeegno bulshadana weliba gaar ahaan dhallinyaradana goobaha ugu muhiimsan oo ah goobaha Lido in ay kaalin weyn ka qaadanayso isla markaana ay tusayso in magaaladii Muqdisho ay sidii bartilmaameedkii ku soo noqonayso magaalo runtii la tartami karta caasimadaha adduunka waa naga go'an tahay annaga inaan joogteyno ha noqoto nalaynta bilicda soo celinta ha noqoto waddooyinkeeda ha noqoto nadaafadeeda amniga dhammaan waa waxaan u taaganahay annaga bulshada inaan u adeegno runtii bulshadan caasimadana waxaan uga mahadcelinaa sida ay mar walba ula shaqeeyaan hay-adaha dawliga ah iyo maamulka gobolka Banaadirba oo hari habeen u taagan inuu u adeego bulshada siday gudoomiye Sabax iyo gudoomiye Fiidoba u sheegeen waxa loo baahan yahay bulshadu inay kaalintooda qaataan oo ah leerarkii in la xafido in xaafadii nadaafadeedii iyo amnigeeda laga wada shaqeeyo waxaan si gaar ugu mahadcelinaa booliiska degmada Cabdicasiis oo runtii suura geliyay xaafadda degmada Cabdicasiis gaar ahaan Lido ay noqoto meel bulshadu ay kalsooni buuxda ku qabi karto marka waxaan rajaynaynaa inta dhiman inaan sii dhammaystiri doono oona sii wadi doono aad iyo aad u mahadsantiin